magacaygu waxaa la yidhaahdaa axmed cali xuseen waa ku magac dheer axmed kiisi waxaan dhashay 1966 waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa quraankii dugsiga quraanka iyo dugsigiisa hoose dhexe sare inta waxaan ku qaatay magaalada Hargeysa waxaan ka baxay dugsiga sare Maxamuud Axmed Cali 1984 ayaan ka baxay urmudkii shaqada qaranka waxaan ku galay macallinimo 86 waxaan tegay dalka Suudaan waxaan galay kulliyad ziraaca jaamacadda Suudaan lilculuum والتكنولوجيا waxaan ka soo baxay bilowgii 1992 waxaan ku soo noqday isla dalka isagoo markaa iska burbursan waxaan ka shaqeeyay dugsi gacanta ku hayo ururkii Itixaad al-Islaami oo ay maalgelin jirtay hay'adda Islamic Relief Organization ama hay'adda liqaasha al-Islaamiya ee Sacuudiga waxaan ka noqday maamule dugsiga Cumar bin Khataab ayaa la odhan jiray 92 ilaa iyo 93 ayaan joogay marka 93 aakhirkiisii waxaa ka dhacay magaalada dagaal sokeeye oo labada isku dileen maxay ahayd qoladii dawladda Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal iyo qolada beesha Garxaaska oo markaa anu ka soo jeeday dagaalkii markii dhacay oo lagu kala qaxay waxaan u qaxnay xagga Itoobiya muddo ayaan ku maqnayn 96 ayaan ku soo noqonay Hargeysa 2002 bilowgoodii waxa aan u wareegay xagga munaadamada dacwada islaamiya oo iyadana kolka hore si jaanibi aan ula shaqayn jiray laakiin markaa xafiis ka furatay iskuulna ka dhistay magaalada munaadamada dacwada islaamiya markii aan u wareegay waxa aan ka noqday munasiq ama coordinator baan ka noqday iskuulkii hay'adana xafiiskeedii waxaan ka noqday beeshada Hargeysa ayaan mas'uul uga noqday intaa kadib waxaan ka shaqeynayay munaadamada dacwada islaamiya sidii ayaanan u joogay ilaa ay ka soo gaarayso marxaladan cusub oo 2004 aan ku gacan galay waddan Amerikaanka oo ay maxay ii direen hawshan imika ay noo fadhiyeen sanadii 2004 ay ahayd markii Axmed Kiisi uu safar kaga ama baxay magaalada Muqdisho isagoona ku sii jeeday magaalada Djibouti halkaas oo ay kaga qorshaysnayd inuu uga sii gudbo waddanka Suudaan xubno ka mid ah sirdoonka CIA Mareykanka oo kaashanaya jawaasiista waddanka Djibouti ayaa la haray baasaboortkii Axmed uu ku galay Djibouti inkastoo loo ogolaaday inuu magaalada u gudbo maalin kadib ayuu dib ugu soo laabtay garoonka diyaaradaha ee Djibouti balse muxuu Axmed halkaasi kala kulmay maalintii labaad aan ku tegay madaarka markii aan tegay baasaboorkii aan weydiistay waxa la igu halkan fadhiiso wax yar kadib waa la kaxeeyay kiish ayaa madaxa la ii geliyay labada gacmoodna waa la iga xidhay waxa la igeeyay qol yar oo xagga badda ku dhow halkii baa la igu xidhay maalin ayaan ku jiray maalintii labaad ayaa la ii yimi markaa intay iga soo saareen qolkii ayay suuligay geeyeen markii aan soo maydhay soo weysaystay aan tukaday ayay cunto ii keeneen waxaashii bay iga fureen waxaan markaa ay geeyeen qol xafiisa markaa waxay yidhahdeen ninkaagan waxaa tahay in argagixisaa cilaaqad weyn la leh waad caawinaysaa madaxdoodii ayaad la kulantay markaa يعني حسابتين ويعد كان شاي وقلقاني كنو halkii baan ku noqday habeennimadkii ay yimaadeen 10 saac ee habeenimo way kaxeeyeen waxay geeyeen madaarka Djibouti waxay ugu yiraahdeen diyaaradda Soomaaliyeed waxa weeye diyaaraddan 2-3 saac ee kowda habeenimo ayaa waxay tagaysaa Guantanamo Bay marka 2 saacadood ayaa China haysata
in aad nala tacaawunayso iyo in aad diyaaradda raacayso doontina ama tegayso. CIA-da Mareykanka waxay Axmed Keisi fursad u siiyeen 2 saacadood in go'aan uu kaga gaaro mustaqbalkiisa dambe, in uu doorto xabsiga Guantanamo kuna dhinac noqdo dadka muslimiinta ee ku jira ee diintooda loo dhibaateynayo, ama inuu doorto galadaasi inuu la shaqeeyo kana dhinac noqdo muslimiinta la dhibaateynayo. ugu dambeynna Axmed muxuu doortay? marka waan ku celinaynaa fakir, adigu go'aanka adiga iska leh. markii aan ku noqday meeshii, markaasaa adduunyadii oo dhan igu soo ururtay. marka waxaad yeeshaa adigu waxay go'aankii noqday, waxaan ku yidhi waan idinla tacaawunaya. markay ii yimaadeen waxaad go'aansatay yidhaahdeen okay waan ku idinla tacaawunaya, maxaa iga rabtaa? waxaa igu yidhaha waa si fiican iska seexo, beri baan kuu sheegaynaa waxaan kaa rabnay. sidii ayaan ku seexday. maalintii dambe ay ii yimaadeen, waxay igu yidhaahdeen xamar waxaa joogay 3 nin oo dembi naga galay oo safaaradihii Mareykanka ee Dar es Salaam iyo Nairobi qarxiyey. waxaa la kala yidhaahdaa mid Abu Talha Tariq Sudani baa la yidhaahdaa, waa Sudani. mid waxaa la yidhaahdaa Harun Fadul, midna waxaa la yidhaahdaa Salih Nabahani. iyaga ayaa noogu muhiimsan in aan maxay ahayd warkooda helo. marka in wixii aad macluumaad ka hesho na siiso. koo, cilaaqaadka ka dhexeeya Cabdis Group iyo nimankaas in aad noo soo ogaato. Cabdi Groupkiisu markaa xarakadu may magacawneen oo shabaab yani may jirin, Cabdis Group bay odhanayeen. in maxay ahayd meeshay fandka ka hesho aad noo soo ogaato. intaasaan kaa rabnaa. waxaananu ku xiriir samaysanaynaa email inoo samee. marka emailkaas passwordkiisaynu kala qaadanaynaa, draafkaynu isugu diraynaa wixii maxay ahayd macluumaad ah. bishiina 3 goor ayaynu soo wada xidhiidhaynaa, 4 biloodna hal mar ayaynu Dubay isku arkaynaa. marka hawshan aan isweydaaranaynay waxaa isaguna nala joogay oo goobjoog ahaa Cabdilaahi Xasan in la yidhaahdo, oo ah agaasimaha sirdoonka jamhuuriyadda Jabuuti. isaga waqti badan ismaanu arag. maalintaas la qabtay ayaanu is aragnay. waa nin Soomaaliya, waa nin gaaban, waa nin ciisa, siduu ii sheegay waa nin mamaasana. xidib baynu nahoo gabadh isaaqaan qabaa buu yimi. maxay ahayday waa nin maxay ahayday aada nis yar, nin xoog weyn maaha oo buuran, waa nin nis yar weeye, caato nis yar oo gaaban. luqada faransiiska iyo ingiriisiga si fiican buu yaqaanaa. sirdoonka Jabuutina waa ninka u qaabilsan xiriirka hay-adaha sirdoonka ee ajnabiga, ama Mareykan ha noqoto si hay-ada, ama kuwan ingiriiska ha noqoto MI6 iyo MI5 iyo waxaan, ama kuwan dee Jarmalka iyo hay-adahan jooga Jabuuti way wada joogaan kuwa reer galbeedku. marka ninka xiriirkooda u qaabilsan weeye. wax badanna kolley dee arrimaha Soomaalida wixii dee loo qabanayay iyo wixii madaarka Jabuuti iyagaa gacanta ku haya. marka iyagu qolada kale dee intay iska yimaadaan Axmed baa meesha maraya qabta ma odhanayaan, iyagay u sheegayaan oo ninkaasaa meesha maraya ku odhanayaan. ninka qabanaya waa isaga iyo raggiisa. soo hadalaya markaas bisha 4 ayaa la mamnuucay baasaboorka Soomaaliga ah in Dubay lagu tago. marka waxaan ku yidhi haddii waqtigaa la gaaro kulankeenu uu adkaanaya, ana iman kara anugu Dubay. marka waxay igu yidhaahdeen sawir ayaa Cabdilaahi Xasan ninka la yidhaahdo ayaa sawir iga qaaday. wuxuu igu yidhi anigaa kuu soo xalinayna mushkiladaas. sidii ayaan kaga yimi. waxa marka halkaa aanu ku kala qaadanay canaawiinta iyo wada shaqaynta. nin CIA-da ka tirsan oo la yidhaahdo Kevin, isaga ayaan markaa xiriirka intii dambe oo dhan. Kevin horta wuxuu ahaa kolkii meesha ugu horeysay aan meesha ku kulanay 3 nin oo Mareykan iyo Cabdilaahi Xasan ayaa kulankii ugu horeysay aan ku kulanay. labada kale mid Michael baa la oran jiray, midna George ayuu ahaa. marka iyaga maalintaas ay soo kacay dambeysay. ninka xiriirka aan lahayn Kevin kan ayuu ahaa.
Kevin wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo cirdigii afraad ku jira yani 10 sano afraad ku jira ama ilaa 40 wuxuu yani waa nin aad khalfiyad fiican u haysta arrimaha Soomaalida gaar ahaan xarakaadka islaamka waa nin aad iyo aad wax badan uga og hadday tahay madaxdooda iyo cidda mas-uulka ka hadday tahay maxay heeday in qaabka ay u dhisan yihiin hadday tahay waxyaalaha ay aaminsan yihiin iyo barnaamijyadooda fikrad fiican ayuu ka haystaa xagga qabaa'ilka iyo qabqablayaasha Soomaalida wax badan ayuu ka og yahay intooda badanna xiriir ayay leeyihiin waana ragga badan tagu fuliya howlaha ay iyagu uga baahan yihiin Soomaaliya wixii xiriirana isaga ayaa la sameeya wax badanna uu ka og yahay qaabka ay u shaqeeyaan iyo sidee u wada shaqeeyaan waana runtii deeqab weyn baa ku jira oo yani Maraykanku inuu wax walba u heli karo wax walba ogaan karo ayaa runtii maxay ka dhaadhacsan laakiin runtii waxaan anagu intii aan ogaaday waxyaalaha aan ka ogaaday waxa weeye inaanay si ayad wax badan ogeyn